waxaa si rasmi ah xilkii ula kala wareegay taliyaha cusub ee qaybta booliska iyo taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Togdheer xil wareejintani oo goobjoog u ku ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland iyo taliyayaasha saldhigyada Burco ayaa ka qabsoontay xarunta qaybta booliska ee gobolka Togdheer ugu horreyn waxaa madashan xil wareejinta ka hadlay taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaanle sare Axmed Cali Shabeel oo ka warbixiyay muddadii uu joogay gobolka waxa uga qabsoomay amniga iyo kiisaska nabadgelyo ee ay fuliyeen gobolka jooga ay sidii ay la shaqeeyeen ay ula shaqeeyaan cali dadweynaha reer Burco runtii muddadii aan halkan joogay si wanaagsan bay anoo wada shaqeynay oo ay la shaqeeyeen iyaguna aad iyo aad baan uga rajaynayaa in calina sidaas iyo si leeg ay ula shaqeeyaan waana aad iyo aad baanay ugu mahadsan yihiin sidii wanaagsaneyd ee anoo wada shaqeynay marka waxa weeye xilku waa meerto maalin nin baa imanaya marka waxa weeye linkii yimaadaba in la shaqeeyo si wanaagsan loo shaqeeyo ayaa meesha ku jirta isaguna waxaa madashani ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Maxamuud Faarax oo ciidanka booliska iyo bulshada ka codsaday inay ka wada shaqeeyaan ilaalinta nabadgelyada maalin iyo imanaya anigu shalay taliye waxaan ahaa barasaab doraati ka horeysana taliye qaybeed baan ahaa oo booliska waxa weeye kamaan dhex bixin inta muxuu ahaa barasaabada ahaa barasaabka ahaa uma ka maqnaa meelan joogana booliisku baan ahaa aniga abtirsiintaydu waa booliiska iyo askariga in maanta isku hor fadhino runtiina waa sharaf maanta sharaf bay tahay inaan Burco u noqdo taliye qaybeed Burcana hore uga shaqeeyo taliye saldhig baan ka soo noqday saldhiga dhexan joogay tiyo 99kii halkaas aan joogay maanta ilaahay mahadi waxa baan noqday taliye qaybeed idinka waan idinku amaanayaa sida wanaagsan ee muxuu ahaa uga soo qayb gasheen iyo hawsha wanaagsan maanta isku timaadeen fariin u diraya oo ka codsanaya dadweynaha reer Burco waxaan leeyahay waxa la idinku yaqaanaa muxuu ahaa karti iyo dawlad jacayl iyo dantiina oo taqaanaan iyo nabadgelyada inay isgarab taagtaan warbixinna waa lagu sii horana waan idinku oqaano waan idin qaadnaa maantana waxaan leeyahay in nabadgelyada isgarab taagtaan baan darin oo ah qaranimada taasaa dar u ah annagana taasaa darin oo ah idinkana taasaa dar u ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland sareeye guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle oo xil wareejintani ka hadlay ayaa uga mahadnaqay taliyihii hore muddadii uu xilka hayay isagoo oo sidoo kalena ciidanka iyo bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan taliyaha cusub looga jeedo shaqada iyo in la tatiis geliyo shaqada kor loo sii qaado gobolkan aniga igu cusba anigoo gaanan joogay 2 sano dhalasana waan ku dhasho waan ku dhaadanayaa oo gobolka aan ku dhashay weeye dadweynaha reer Burco waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqaynaa sida ula shaqeysaan ciidanka iyo sidii hawlo kasta u yimaadaba dhinaca noola qabataan gobolkani iyo gobolka Hargeysa way ka cusubyihiin gobolada kale waa magaalo madaxdii iyo magaalo madax labaadii weeytan gobolada kale gacan baa lagu hayn jiray laakiin Hargeysa iyo Burco labada gacmood baa la isugu geeyay iyaga uqaal salaadiin baaximsidi iyo ganacsi wanaagsan baa gobolka jooga wixii baahi yimaada iyaga kala hadii ilaahay ka dhigo aad uga gacan uga baato waa ku diyaar waana ku gacan siinayaan dadweynaha aan sheegay uqaal salaadiin iyo ganacsi waxaan leeyahay in la shaqeysaan sidii Axmed ula shaqeynayay ula shaqeysaan taliyaha cusub ugu dambeyn waxa labadani taliye xilka u kala wareejiyay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.